cumar cabdirashiid aadan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo ugu horrayn waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo geeridii aabbe allah u naxariistee sidaan la socdana warbaahinta soomaalidu wax badan kama samaynin allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke 15 Oktoobar ayaa la dilay 1969 geeridaas qoyska see u saamaysay warkiisana haddaad xusuusato inkastood yarayd seed ku hesheen warka in la dilay madaxweynaha maalinta la dilay allah u naxariisto aniga waxaan ka imid iskuul elementary school aan dhigana aniga wiil iga weyn labadana iskuulka nala ka soo qaaday aniga koodii meelahaas ahayd 12 meelahaas koodii gurigaan imaan markaan guriga soo galan wax yar kadib waxaa banaanka ku cayaaray marka waxaa هون قارئ هون كسوية دي أذكر الله حريصة دار حاج عثمان وإسوالك دهدوين مركز واحد دي جي أنا ما بقوله دارت الجنة أو مثل أوف انتوديك وقها دي كل شيء جوري وقها مقلي على توقف مقلي إن أساس سوق راعي هذا من لا عيال من السلام وأهنجلي من راح لين قارئ أرض ودكتور أرض بجنجة كفولي جوري وكل واي markuu guriga galay de waxaan leeyahay xajiida qoyday allah naxariiso uu la hadlay dad iyo marka qayladii baroorti ayaan anaga maqalnay saas horta ay dadku waa ka hor maqalnay caadi ah marka laga sheegay galabnooda way ma guri caadi ah dagareedeen mise villa Soomaaliya loo qeybay way qeybtan hore marka hadda gudoomiyaha baarlamaanka iyo degayiin gurigu ahaa way qeybta madaxtooyadu xagga jirta oo hadda guriga ahna xafiiska ahayd qaybna deegaanka madaxweynaha qaybtana deegaanka ahayd qaybta dhinaca soo jirta villa Hargeysa la yidhi waay villa Soomaaliya qaybta xafiiska ahayd waay marka qaybta horan degan wajiga hore marka guriga cid walba ahaaba dad badan ma joogin markii oo dad badan ma joogin waay guriga aad u weyn ahaa ismayaasha hadda badan وأنا أوغندا هاوس واحد هان مدي تنبو حفيزك مدحوينها لغا دغي مجري غوري هوسه مدحوينها iyo guriga kore oo guri ahaan u isticmaalaan ayaa ku yaal kan hoose martida waxa guriga martida dadkii maada la dajiyo kan dhinacaan wuxuu ahaa gurigii xafiiska u ahaa waay markaas staafka xafiiska marka saalay ku sheegay marka madaa baroorta maqasheen doonka soo geeray waxa markaas ay odayga waa dhintay dabaan yareen ay kulay nin impactiga ku yeelan lahayd ma yeelan laakiin waa dareemaysaa muxuu ahaa maxaa ka xustaa baa markaad guriga la joogtay noloshiisa wallahi daniyo kulay anaga waxaan la qolanay isagoo siyaasad very active ah Allah naxariistay markuu fursad helo ayaa habeenkii waqtiga dambe ayuu adigu wuxuu naga sheegayn jiray hadaba iskuulka iyo sida aan maaragtay tacliinta ku nahay waan la sheekaysan jiray waa uu maaragtay salaada subaxna markuu tukado yuujul waxa aad jiray socod ولوين جدي marka madaxtooyada banaanka uga bixi jiray dadku iska nawdo hal qof kaliya ilo qof kaliya raaci jiray marka saas wax xasan la lugeyn jiray saas markuu baxo aniga iyo wiil kala raacna badana marka wiiladu ka baxa iridda gadaale oo xafiiska ayaan ka soo galnaa guriga marka saas soo leeyahay ana marka waxa isku jirtay caadi ahaan masaakiin darbiga fafadhida oo maaragtay marka badana anagu noo dhiyo jiray sababta jiraasiya kulay waxa uu ku barbaarinay ahayd yani waxa noqotay anaga ruuxina dad maxaa saameyn kugu leh marka aabaha ka xusuusataa gaar ahaan waxyaabo farxad leh waxyaabo oo idin dhex maray walaade kulay waa qof waa ciyaar jirnay waqti oo Allah naxariiso waa la ciyaar jiray waa wuxuu ahaa maaragtay nin waan maaragtay in وقت انه ما هي ديسيبلين كوكتيل سو مركو انو ودي جسمي ورو خاص ورو عرون جدي سنه دي قف سوال عروس لكن انا اسير waxa dad iska dhib badan oo maartay way marka kulayba geerida niman yar yar caruurna waa lahayd abaan waa dhintay agoonnimo ma dareentay marka di khasab in markii oo dhintay kadib impactiga inagu yeelato waxa weeye dadka ama kugu ciseynayaan
ama kugu waa kugu xayiinaya moogtahay marka waxaa ku qasbanaanaysaa in dadka da'daada ah aad ku horumartid yani gurigaad ku soo kortay siyaasadii saameyn kugu yeelaysa ama negative ama positive moogtahay marka qofka adiga da'daada ah ma dareemayo waxaas soo asaga free wuxuu yahay inuu dhallinyarnimadii maaragtay adiga laakiin marka mas-uuliyaddaasa xoogaa waxay kugu qasbaysaa inaad taariikh haro ku saaran iyo inaad is ilaalisid ogtahay markii aabbahaa joogo waxaad taa samayn kartaa laakiin markaad ogtahay inuusan joogin waxaa ku qasban tahay inaad taxadirtid inaad maaragtay waliba markaad ogtahay in siyaasaddaas ay negative ama positive ku saameyn karto waa sidii oo is ilaalinaysaa